السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaaw YouTube channel-kayga Mustafa Al-Cadaala fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube channel-kayga haddii aad horey saaxiib ila ahaydna waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like garayso maanta halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa ama aan ku falaqayn doonaa sida ugu fudud ee Facebook page lacag looga sameeyo sida aad wada ogtihiinba in badan oo kamid ah saaxiibada Soomaalida ayaa jecel inay Facebook page lacag ka sameeyaan qaarkoodna waxay jecel yihiin inay Facebook page magac ka sameeyaan oo magacooda uu caan noqdo sidaas darteed waxay sameystaan page iyagoon ogeyn muhiimadda goonida ee uu leeyahay in lacag laga sameyn karo iyo in kale marka waxaan rabaa maanta inaan halkan intii aan ka aqaan aan idinkugu soo gudbiyo sida ugu fudud ee lacag looga sameyn karo magacaaduna uu caan ku noqon karo oo labadii faa'iido aad uga faa'iideysan karto horta marka koobaad sideen wada ognahay waxaan wada leenahay ciwaano Facebook laakiin dadka badankood ma lahan page ayaad sameysanaysaa sida page loo sameeyo aad bay u fududahay oo qof kasta oo ciwaan leh ama Facebook account leh wuu sameysan karaa page markaad sameysato waxaad sameynaysaa pagekaas waxyaabaad soo gelinaysaa waxyaaba aad soo gelinayso waa inay ahaadaan waxyaaba aad adigu leedahay oo muuqaallo adigu kaa turjumaya ama sawirro aad leedahay ama xog adi markaas ku qaasa qoraal iyo wixii noqotaba fadlan ha isku dayin inaad isticmaasho muuqaalada Facebookyada kale la wareejinayo ama dadka kale ay soo dhigtaan ama xitaa YouTube-ka aad ka soo qaadatay muuqaaladaas iska ilaali kuma wanaagsana haddii ay dhacdo inaad isticmaashana waa inaad wax ka bedeshaa oo aad muuqaalkaada kusoo lifaaqdaa ama aad kusoo dhex dirtaa adigoo markaas wax uun falaqaynaya oo markaas mawduuc taagan ka hadlaya oo soo qaadanaya muuqaaladii kale qayb ka mid ah taadina soo barbar dhigaya si aad u falanqayso waana in yar oo kooban mooye ma wada qaadanaysid in yar baad ka soo qaadanaysaa saas darteed saas baad ku isticmaali kartaa haddii aad ka maarmi kartana 100% waxaa wanaagsan inaad ka maaranto oo aad muuqaal adigu leedahay sida hadda aan idin hor fadhiyo kale aad dadka aad u soo hor fadhiisato saas darteedna aad wixii markaas aad ka hadli rabta aad ka hadasho laakiin haddii ay noqoto inaad muuqaalo kale soo qaadato isbuucyada ugu horreeyaba waxaa lagu saari doonaa calaamad yellow ah ama jaalle oo marka kow uu ciwaanku kuu soo baxa Facebook page marka ugu horreysa aad sameynaysid calaamad buluug ah ayaa saaran oo tigta yacni saxda ah matalaysa calaamadaas haddii restriction kugu dhaco waxay noqon doontaa jaalle mararka qaarna way jirtaa isagoo cusub in calaamadaas saaran tahay laakiin si waxaa jirta lagu ogaado ama lagu baaro oo hadda arrintaas mawduuc kale ayaan uga hadli doonaa xoogaa way adag tahay inaad fahantaan oo halkan laguma falaqayn karo sida yacni maaragtay calaamadaas lagu baaro laakiin inta badan calaamadaas waad ka badbaadi doontaa haddii aad muuqaalkaada isticmaasho Facebook page markaad sameysato waxyaabaad soo gelinaysa adigu leedahay waxyaabahaas waxaad isku dayaysaa inaad share garayso asxaab badan gaarsiiso oo ilaa iyo 10,000 oo follow inaad gaarto muhiimad maahan 10,000 oo like muhiimad waa 10,000 oo follow inaad gaarto markaas kabacdi lacag waad sameyn kartaa lacagta sababta aad ku sameynayso ma ahan sabab fudud ama wax oo dadka qaar waxay moodaan markay 10,000 gaaraan inay lacagta hore ka helayaan waxaa kaloo lagaaga baahan yahay shuruudda koobaad waa inaad 10,000 gaartid 10,000 wax sahlan maaha waa inaad dadaal iyo juhdi fara badan geliso shuruudda labaad ayaa waxay noqonaysaa inaad heshid 600 oo minute 600 oo kun oo minute 60 maalmood gudahood aad fahanteen aan umaleynaa waa inaad 2 bilood ama 60 maalmood gudahood ka heshaa 600 oo kun oo daqiiqadood ama 600 oo kun oo minute saa u fahmaysaan marka waxaa kaa saacidaya taas viewska badan markii muuqaal aad soo dhigto ee dad badan ay views gareeyaan ama in ka badan 100,000 oo qof 200,000 oo kun 300,000 oo kun oo qof ay daawato ama xataa 1 milyan viewskaas waxaa loo bedelayaa daqiiqadahaas marka waa inay gaarayaan ilaa 600 oo daqiiqadood ma ahan daqiiqadaha inay meel kale ka imaanayaan ama si kaliya viewskaas ayaa waxaa loo sarifayaa daqiiqado marka inaad fahantiin aan rajeynaa waana si easy ah oo aad u fudud markaas kabacdi markaad shuruudahaas buuxiso akoon ayaad ku xiranaysaa address ayaad ku xiraysaa akoonka aad ku xirayso waa akoonka hadhow lacagta kuugu soo dhici lahayd markii aad lacag sameyso sidoo kale ii sheeg address ayaad ku xiraysaa intaas kadib waxyaabaha kaloo lagaaga baahdo waxay noqon doonaan waxyaaba aad isaga fudud kaliya muuqaalada ayaad zaid u gelinaysaa muuqaaladaas waa inay noqdaan muuqaalo dadku jeclaystaan oo views badan helaya oo reaction badan laga bixiyo sida badan hadda saan dareemayo Soomaalida waa aragteen ii sheeg waxay sameeyaan sawir ay soo dhigaan dadaa waxay helayaan
5 kun oo commenti dadaa waxay leeyaan 20 kun oo like 10 kun oo like 5 kun oo like iyo in ka badan viewsku aad buu u fara badanaya markaas dadkaas inta badan Soomaalida dadka page-yada caanka ka ah dad lacag sameeya ay u badan yihiin laakiin Soomaalida qaarkood ma oga marka ka faa'iideysi wacan waxaa jirta arrin kale oo ah in Soomaalida laga joojiyay qaabka lacag sameynta ama shirkadda Facebook ay ka joojisay Soomaalida dadka Soomaaliya ku nool waaya dadka dibadda jooga maaha Soomaalida oo dhan maaha dadka Soomaaliya ku nool ayay ka joojiyeen lacag sameyntaas laakiin waxaa jirta qaab kale oo xatooyo ah oo Soomaalida ay isticmaali karto oo adoo Soomaaliya jooga lacag ku sameyn karto shirkadda Facebook waa la qiyaamay inta badan qiyaamaha ayaa lagu sameeyaa qaab qiyaamaha ayaa lacagta loogu sameyn karaa marka taasna mowduuc kale aan uga hadli doonaa insha Allah kan intaas ayaan kusoo gabagabeynayna marka iska ilaaliya muuqaalada aadan lahayn ee aad page-kiina dhigaysaan cilado badan ayaan ka imaan kara copyright ayay wataan dad kale ayaa hore lacag uga sameeyay saas darteed idinkana leedinma ogolaanayo inaad lacag ka sameysaan ama aad page-kiina ku hormarsataan fadlan intaas ayaan kaga digayaa muuqaalada idinku leedin isticmaala ama muuqaalada aad kasoo baaran degteen oo waxyaabo badan kasoo bedesheen juhdi badan geliseen muuqaalkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayna mawduucyada soo socda ayaan uga hadli doonaa arrimaha kale oo faahfaahsan iyo qaabkii dhammaystiran qaabka Soomaalidu ay u isticmaali karto oo u qiyaamayn karto shirkadda Facebook iyo waxyaabo kale oo faahfaahsan fadlan daawadayaal muuqaalkan waxaan idin ka codsanayaa inaad share gareysaan sidoo kalena YouTube channelkayga subscribe ay saartaan waa iga baqiishaan inta badan laakiin wallahi hilmaamin ka taa umaleena ma ogi sababta aad subscribe u diidin kulli hadda ha hilmaamin hadda saar muuqaalkan si share gareey salaamullah